السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. kusoo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijkeena taxanaha inoo ahaa ana qaybtii ugu dambeysay waa anigoo Cabdirashiid Ceeblaabe. qaybtii saddexaad waxay inoo joogtay anagoo soo taxnay qaar ka mid ah talaabooyinka lagaga baahan yahay marka ay mushkilo kula kulanto. 11 waa inaad ka hortagtaa mushkilada haddii ay u muuqato in mushkiladu soo socoto. waxaa fiican in lagu dadaalo waqtina lagu bixiyo sidii loo baajin lahaa loogana hortagi lahaa, sababtoo ah ka hortagga ayaa ka fiican in lagu dadaalo sidii mushkilada loo xalin lahaa. walaal qaali, waxaan ku weydiiyey haddii uu abuurmo jawi dagaal, ma waxaa fiican inaan isku dayno inaan baajinno dagaalka, mise waxaa habboon inaan sugno inta ay wax ka dhacayaan kadibna aan xal ka raadinno? ka warcelinta su-aasha waxaan u daynay daawadayaasha. fadlan inooga reeb fikirkaaga qaybta commentiga. arrimo laga maarmaan ah inta aynan xalka guda galin. waxaa jira arrimo laga maarmaan ah oo loo baahan yahay inaad maanka ku hayso, ama waxaa odhan karnaa waa laga maarmaan inaad xasuusnaato inta aadan guda galin talaabooyinka lagaga baahan yahay inaad qaado marka aad rabto inaad dhib furdaamiso si aad xal u gaadho. 1 waa inaad Allah u tala saarataa arrimaha aad doonayso inaad xalka ka gaadho. 2 ha qaadin wax ficil ah haddii aanay arrintu ahayn arrimaha waaweyn ee u baahan in go'aan degdeg ah laga qaato sida xaaladaha dagaalka. 3 waqtigu wuxuu qayb weyn ka yahay xalka. haddaba haddaan xalka la siin waqti ku filan, waxaa suurowda inaadan gaarin natiijo ku farax gelisa. 4 ogow xalka oo la isku dayo inay ka horeyso daraasadu waa barbilowga xalka. 5 waa inaad kala garato fahantana farqiga u dhexeeya waxa suurgalka ah iyo waxa ay habboon tahay inaad samayso. taas macnaheedu waxa weeye markasta inaad tallaabsato inta aad socon karto ee suuragalka ah, isna weydiiso inta ay awooddaadu gaarsiisan tahay. haddaan si kaleenta u niraahno, waa inaadan go'aankaada ku dhisin waxaad jeceshahay, laakiin waa inaad ku dhistaa waxa hortaada yaallo ee suuragalka ah. 6 waa inaad isku kalsoon tahay, aaminsan tahayna inaad xalka gaadhi karto kana gudbi karto dhibkan isaga ah. 7 si aad xal u gaadho, xusuusnow inaad u baahan tahay qof munaasib ah, meel munaasib ah, waqti munaasib ah. 8 waa in go'aanka adiga kaa go'aa arrimaha aad doonayso inaad xaliso, waa inaadan go'aankeeda cid kale ugu daba fadhin. 9 waa inaad la timaadaa dhabar adayg, sabir iyo dulqaad kuu sahlaya inaad ku socon karto waddada xalka loo maraayo. 10 waa inaadan mushkilada xal ugu dhigin inaad dhib ka sii weyn abuurto. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa axbaabii barnaamijkeenii muddooyinkan inoo soo socday. inta aan ku kulmayno muuqaalka xiga, waa anigoo Cabdirashiid Ceeblaabe oo idin leh sidaa iyo ammaano Allah.